inay tahay dawlad sax ah isagoo sheegay in tilaabada lagu taageerayo xal u helidda xiisadda ka taagan dhulka la haysto ee Falastiin sidoo kale mataqaana Israel Spain ka mid ah asana waxa uu sheegay in ay aqoonsan yihiin mataqaana Falastiin saddexdan wadan waxay si wada jir ugu baaqeen in wadamada kale ee Yurub ku yaala in sidaan oo kale ay u aqoonsadaan mataqaana Falastiin kala hore 9 wadan oo kamid ah midowga Yurub ayaa hore u aqoonsaday Falastiin go'aankan waxa uu ku soo beegmay xilli dagaal uu ka socdo magaalada Gaza bishii 8 dagaal ayaa magaaladaas ka socda waxaana Israa'iil ay xasuuqday dad aad u fara badan oo shacab iyo caruur iyo sidoo kale haween iskugu jiro dadka ay dilaysay mataqaana Israa'iil 10kii bisha May golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyada ku aqoonsaday dawladda Falastiin arintan oo hadda keentay leeyahay in sida uu rasiyaha badan saddex wadan maanta wasaarayaashu inay hadlaan adduunku dhan la hadlaan shirja ay qabtaan ay yiraahdaan annagu waxaan garab taaganahay Falastiin waa dawlad sax ah waa dad Israa'iil ay laynayso waa inay dhahaan arintaas ayaa soo gudbisay leeyahay oo mataqaana aqoonsiga 9 wadan oo Yurubna horey ayaa mataqaana ay aqoonsadeen tani waxay mataqaana dharbaaxsho ku noqonaysaa oo mataqaana oo de madaxda dalkaasi Israa'iil tan dharbaaxsho ku ku tahay maadaama adduunkii United Nationskii qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada Yurub ku tahay in mataqaana ay taageeraan waana guul weyn oo dadka muslimiinta u soo hooyatay waxaan la soconaa in xasuuq Israa'iil ay ka geysanaysay mataqaana marayka Gaza iyo Falastiin taas mataqaana muslimiinta xataa masaajidooda ay ku dukan waayeen marka dharbaaxsho xoogan ayay ku tahay nimankan leeyahay Israa'iil tilaabadan adduunka u qaaday maanta oo ku aadan arintan hatta warkan dawlado badan oo mataqaana oo Yurub oo reer galbeed oo Israa'iil taageero iyo Mareykanka dawlado badan oo mataqaana ay sheeg ay mataqaana ka kuban doonaan waqti nuuridiin wadamo badan oo islaam carabi caalam islaam runtii way ka aamusnaayeen intii la xasuuqayay dadka maatada ee Falastiin marka ma jira ilaa wadamo islaam hadda ilaa xilligan ka hadlay hadaladan ka soo yeelay reer galbeedka maqaawada Falastiiniyiinta ama ururka Xamaasna ilaa xilligan wax waran ka soo saaray arintan wallahi ilaa hadda war uu ka soo baxay ma jiraan Falastiin laakiin markii la eego qadiyadan kale oo dunida ka jirto mataqaana carabta ah mataqaana way ka aamusnaayeen dhibkan waxa ka jira mataqaana isha Falastiin ka jira way ka aamusnaayeen markii laga tago hal dawlad ama laba dawladood oo mataqaana shirka golaha ammaanka qaramada markii la isku yimaado briefing oo mataqaana waxay ku baaqayeen in la joojiyo colaadda wax noocaas oo kale laakiin Norway iyo Ireland iyo Spain tilaabada ay qaadeen waa tilaabo ku dhiirasho ah waxa ayna mataqaana tusaysaa adduunka ay tusinaysaa in mataqaana ay sheeg Falastiin mataqaana ay hindud laga gargaran yahay Israa'iil xasuuqdo wadankooda jooga dhibaatooyin loo geysto inay mataqaana tahay ay mataqaana ay qareysaa waa gartay nuuridiin wadamadan shantan wadan oo leeyahay veto ay ku leeyihiin qaramada midoobay Mareykanka Faransiiska Ingiriiska iyo sidoo kale Shiinaha marar far badan waxa jirta wadamadaas caalam islaami ka tirsan ama wadamada Yurub inay isku soo hadal qaadeen in la aqoonsado danaasate Mareykanka iyo shantan dawladeed oo codka veto wala inay ku hor istaageen marka shantan wadam ay laftirkooda hadii ay veto ku hor istaagaan laftirkooda maxay saameyn ku yeelan kartaa dhawaaqidooda wallahi saddexdan wadan waxa ku dirtaa 9 wadan oo go'aan qaramada midoobay cod aqlabiyada markii qaramada midoobay ku xansixiyeen oo ay ku taageereen aqoonsiga dawladda Falastiin waxa jirta 9 wadan oo Yurub kamid ah sax oo iyagana aqoonsaday saddex wadan ayaa ku soo dirsantay marka waxaan isleeyahay hadii sidaan ay ku socoto waa caalamka dhan aqlabiyadiisi waxa moodaa markaan inay u jeedaan adduunka dhan aqlabiyadii mataqaana Falastiin ay ka heli doonaan oo mataqaana isha ay noqonayaan wadan la yaqaano oo de golaha ammaanka cod ku leh waxna diida waxna yeela aad iyo ma santahay wariyaha Nuuridiin Shardi oo noo falanqeynaya qodobka si weyn wadamada caalamka maanta laga hadalayo oo kamid ah in wadamada reer galbeedka kamid ah ay u aqoonsan doonaan Falastiin dawlad rasmi ah iyagoo sheegay inay silmiga ama nabadgelyada rasmiga ay ku jirto in laba dawladood oo markaasi Israa'iil iyo Falastiin ay si kala markaan lagu gaari karin aad ay ma santahay Nuuridiin aad baan u faraxsanahay page ka soo muuqatid ama santahay